ku soo dhowaada qaybta labaad ee barnaamijka Gungaar. qaybtan labaad ee barnaamijka Gungaar waxaan ku dul istaagi doonaa hababka ay dilalka u sameeyaan iyo sida u shaqeeyaan kooxaha wax dhagre ee dilalka geysta. Maxamed Xaaji Ilka Case waxa uu barnaamijka Gungaar u sharaxayaa waxay yihiin kooxda u yaqaanaan amniyaadka ee ka shaqeysa dilalka dhagarta ah ee lala beegsado muwaadiniinta Soomaaliyeed. horta ninka amniga ah shaqadiisa waxa waaye koowaad inuu horta dhulka yaqaan oo dhulka duusan aqoon waxba ma sameyn karo degmada isagoo ku howlgala inuu ka sakaro horta hadii la soo bursado inuu iska difaaci karo isagoo luqluqeena oo ka dhax bixi karo tababar iyo wax ka dib. Maxamed waxa uu sidoo kale barnaamijka u sheegay hababka ay wax u saamiyaan iyo sida ay wax u gaadaan. anaga ma kadib waxaan la dhijirin hebel asoo galay daba dhigta anaga aan sheegin xiliga la kici doono laakiin surveillance oo aad camera taas oo daba kici jir markii la soo oo anaga report maalin walba gudbin jir meeshu tag markii anaga nala la boodi jir. dadka kamid ah kooxdan dhagrayaasha ay wax dila waxay isticmaalaan telefoonada ay u yaqaanaan kuwa shaqo. waxaa sidoo kale jira habab ay u kaydsadaan telefoonada ay kamid tahay inay ku qortaan biyoolaha dhakhtarka iyo wixii la mid ah si aan loogu mashquulin telefoonada u kaydsan. barad marka la saf gareysana in la seeraaciyo magacyo qaytalo hebel biyoole ninka biyaha keen hebel barf professor hebel taytaladaas yani waxay fududeynaysaa hadii sardoon kale uu ku qabto iyo sanadiis ku dhicin doctorka iyo waxa doctor barnaamij ku saf gareysan u dhaha laakiin hadii xasan ama cadda kaliya ku qoran tahay ka hor ama arab kaliya oo qofka qaadanaya mobilka waa inay maxduud ahaadaan simkaarkaas qofku wato waxa laga soo qof inay ku saf gareysan tahay iyada dambe oo dadka shaqada kaga dhaxaysa bis laga wacay waa mamnuuc lambarkaas qofka laga waco dadka shaqada ka leeyahay bis ay yaqaan dad minis diladamiyo meel ka raadiya male hadii la qabta xataa lambarka la bedelna meel qof ka raadisid male wax walba atay xataa. Maxamed Ilka Case waxa uu sheegay in hawshooda aysan ahayn bastooladley oo kaliya balse ay bambooyin tuuraan wuxuuna aaminsan yahay in jugta bambooyinka oo laga maqlayo meelo fog ay ka saameyn badan tahay dilalka isagoona ku doodaya inuu isagu yahay qabiir marka loo eego habka uu tuuro bambada oo aan la ogaan karin ilaa ay qaraxdo. afont hadii la furo waa kala baxday ganjada ciyaalka hore waxay sameyn jireen mugtaga waa ku tuuri jireen askarta ama wadadka meel ama xidhawaan ama guri ku tuuri jireen ciidan haduu markii jaanas wuxuu leeyahay markay ku soo dhacdo uu arko ama tashta uu maqlo jaanas ajar uu fadhiisana oo jiifan kar qofka haduu jiiftana inta ku soo dhacdo waxa ka baa marka hal raba tashta ina gacanta ay ku soo dhacdo markay ku imaanayso maraysan qofka jaanas lahayn macna. bamba tuurka ugu halisanaa uu sheegtay inuu sameeyay waxa kamid ah bamba uu ku tuuray meel la isugu yimaado Xamar Jajab halkaas oo uu sheegay inuu gudaha u galay kuna dhuftay laba bam gacmeed. waxa aad ugu sameeyay qolooyin oo Xamar Jajab shiishad ku cawi jireen oo BS ah jireen Xamar Jajab taandhow waxaan filaa sanadkii inuu ahaa 17 16 dhamaadkiisa inuu ahaa waa caawin qisas Xamar Jajab qabtan israaca ka dambeeyay guriga ku marqaamayeen guriga la dumiyay idaacadda wala yeeshay markaas waa dadka abta guriga oo qolka oo galay mugdi ah qolka shiishada cawaayeen gabdho BS iyo mootooyin balan ku yaaleen laba xabaan watay kaliyeena qof ila galay markan waa kaliyeeya waa galay maalin badan istadlaaceen meeshaas shaqada habeenkii rabta inay dhacdo dhalinyaradii soo bixi waayeen shaqadina waa lagu soo celinaya kaliya gal qalilay waa ku soo celinaya telefoonka dibnin kaliya gal وكابرهنا sidii ku dhacday markii halkan waa qolkii ay dhalinyaradu ku sugayeen banooniga kuna ciyaarayeen laadhuuda oo Maxamed Xaaji Ilka Case ugu soo galay kuna dhuftay laba bam gacmeed kuwan waa qayb kamid ah astaamihii bam gacmeedka uu qolka ku dhuftay Maxamed Xaaji mid kamid ah dhalinyaradii waqtiga ku sugnaa qolka ayaa noo sharaxaya wixii halkaas ka dhacay iyo waxay qabanayeen. maalinkaas waxay u dhaceen anaka banooniyan sugeynay inaan fiirsano laadhuuga mobilka wada dheeleynay nalka naga dansanay irida nala soo galay irida markii nala soo galay bamba nala soo dhiibay bambadii waa ka tibtay mid kale naloogu soo celiyay tiya qaraxday la wiilna waa ku dhintay wiil kale waa ku dhaawacmay mid kale shabaqo ku noqday mid kale waa ku jabay aniga fiirra galay saasay wax u dhaceen
marka qiyaastii meeqa dhalinyaro ahayd waxaan ahayn 9 ahayn wax dawladdu u shaqeeyay ku jira wax dawladdu u shaqeeyay wax la shaqeeyay midna naguma jirin waxaan ahayn shacab ciyaal iska xaafadeeda aan balooniya sugeen waxaan u maleynayaa in la bartilmaamay ma garanayo ilaa hadda wallaahi ma aqaan maxamed xaaji ilka xasan waxa uu sheegay in bambatuurka lagula xisaabtamo inay keenaan gaanjada bamka taasoo ah caddayn uu ka rabo qofka soo diray wuxuuna ku doodayaa inay tahay taasi qayb ka mid ah isla xisaabtanka bambatuurka maya dhalinyarada haddaysan expert qofka duusan expert ahayn gaanjada ma bal rabo in la tuuro gaanjada waxaa la rabaa markaa soo tuurtid sideeda ay tahay fartiga soo saarta laga rabo amiirkaan ah macna haddii kale macna waxa laga yaabaa in meel waa soo tuura dhihi kartaa waxyaabaha accountability ka mid tahay ina bam soo tuurto waxa cadayna gaanjada ay keenayaan meeshaasna kugu sugaa maxamed xaaji ilka xasan waxa uu barnaamijka gungaar u sharaxaya waxa asaasiga waa si ay wax u dilaan isagoo weliba sharaxaya qofka aan hubaysnayn habka ay u dilaan taasoo qofkii darso wax ka baran karo una kordhinaysa feejignaan iyo inuu isagoo aan hubaysan samayn karo iska caabin dadka markii cabaar ay ku dhex jiraan hawsha expert ay noqdaan ba lawma u baahan kaliis soo gal kara qofka kale wuxuu dhaabis dadka yeelaan anagu faatixinkan qofka soo kala xirtay maxaa la jiray baskoolada la soo kala xirtay inta hadafka loo soo laabto hadafkan uu fadhiyo hadduu si jeedo ama horta waxa isku dayaysa mar walba inaadan wajiga ugu imaanin oo wax walba dhici karo wajiga uu fakan karaa adoo dhan waxa ku filan markaas socod inuu hal mar ku istaago hadafku waa labeyn inta ku dhufan waa ordayay aba uu noqon ninka marka inuu si jeedo ama inta ugu imaado ama isagoo ugu imaan heshidaad isku day laakiin haddii ay dhacdo inuu derbi madax ku jiro sideeda amal hada meel ka dambeys laga gaadi kara ma qofka intuu ku soo socdo waxa laga rabaa 3 talaabo marka uu yaraa marka la soo jirtid inaad ku soo bilowdo taxbada marka maxaa laga wadaa marka hataa uu taagan yahay hataa 3 talaabo na soo jirtid hadii wajiga ugu hor imaanaysid inaadan la soo raadsan madaxiisa oo ku dagaalama kara qofka naafeen alla marka ina qofka aad dhigin kartid horta meelaha lacag ka saari kartid marka ku dhaco madax markaas lagu baashala kor laakiin waxa isku day hadafkeen la dhigo horta marka qofkaas ku soo weerar isaga dhanba wuxuu ku filan hal mar inaa u istaagtid maxamed ilka xasan waxa uu kaloo sheegay in qofka dilaaga ay qasab ku tahay inuusan ku laalaaban goobta uu wax ka samaynayo falka ka hor taasina ay tahay cidda qabanaysa kooxda saaminta ama istikhbaaraadka u yaqaanaan waxa mamnuuc ah adoo nin ikhtiyaal rabo inaad meeshaas ku laalaabatidna dharkaaga awoodo xasdan nin anteena u hol saaran marka aad soo bixisid oo hadafka aad soo aadaysid waa mar adiga aad u soo diyaar garowday maxamed xaaji waxa uu ku doodayaa in qofka bastoolada haysta uu la mid yahay qof aan hubaysnayn haddii uusan diyaarsanayn oo feejignaan uusan qabin wuxuuna sharaxayaa hababka aysan suuragal u ahayn in loo bareero qof bastoolad wata haddii ay ku arkaan qof hubaysan habka asaa kala aadana qofka hadduu bastoolad ku hubaysan wali wuu yeelaa yani gaar ahaan qofka hadduusan digtoonin lahayn waxaa laga yaabaa bastoolada in caadi isan u koob gareysneen ammaankuusan u furneen caadi isaga wato waxa mu tartay markaas soo baskool laana amal waa laakiin markii qofka isaga intuu waxay u koob gareysan ammaanka u furin dubahan u dhigay ama dubihi uu kab ururin uu sameeyay wala kab ururin hadda kab ururin taa waa iyadoo dubaha ku dhigan amal lamagti maxamed xaaji waxa uu ku doodayaa in qofkii 1 sano ama 2 sano wax soo dilayay ay ku adag tahay inuu wajaho qof hubaysan balse qof sidiisa oo kale waqti dheer wax soo dilayay ay u fudud tahay taasoo muujinaysa sida maxamed uga baxay xayndaabkii dadka caadiga isagoo isku arka qabiir ku takhasusay wax dilka yani jaanisi waxa la qofka aad kula hirdami kartid oo qofka markii isaga soo socdo adoo dhan waxa ku filan inaad inta wabstido aad dhahdidno kadibna meesha u banaysid hadafku uu qalcdo markaas biswa hadafka mar walba dhaqdhaqaaq aad qofkaas uusan ku ogeynaa sameeysid uu qalcay illa ma qofka inuu ahaado qof degan oo wax badan soo ikhtiyaalay inuu ahaado kula dagaalamo waa gooni taas laakiin qof 1 sano 2 sano wax dilay ma sameyn karkaas waa maxay dil ama ikhtiyaalaad waxay u yaqaanaan waxa uu maxamed xaaji ahaa dilaaga ugu weynaa muqdisho oo ay soo qabteen booliska gobolka banaadir sheegtay in dilkoodu yahay gaadmo isagoo aaminsan haddii aad weerarto qof iska kaa jira ay noqonayso dagaal ku xiran qof iyo kartidiis taasna aysan ahayn shaqadooda waxa qasab ah qofkaas maankiisa wax yar in la dooriyo wax yar in la dooriyo
حتى نين إسي وكشكيني حتى الله ردقه إنتو أصدقائي كان يسوقوا قادين كاس يكون عادي اختيار كم مرة البوا قاد ما دي سن قاد من نقل اختيار ما دقال وا suurtagal ma tahay inay gaadaan qof qori haysta maxaase looga baahan yahay qofka qoriga wata si aan loo gaadin waa kan mar kale maxamed xaaji oo sharaxaya hababka suuragelin kara in la dilo qof hubaysan ninka qoriga wata markaan soo galo ninka qoriga wata aakaha wata waa la kala saaraa hadana yani ninka marka aan la aadi karin oo aaka wata markuu gacanta u ka haysta aakaha أنت أو ماشي على مسترد مسافة قبتان كور الواحد أساس وهست ومرك خف كلا هذه كرم أصيب البوق بسنكرة خوري يسخف كل كذا وهست سيب البوق بسنكرة وحكى الله لماذا خف كمرك يسوي أنتوا أتصل قشطة أساس وهست هذا وصل قشطة على ماذا لكن أساس وقشطة وخوري هو أدسي أوكي وا أمرك عوني ست حلقة يا أبو حتى هنا أساس أو قوة الجدال أكثر أما خوري في أساس هي لحسة أسي muxuu sameyn karaa markaa uu baad qoriga fiis xaq waa diin in qorigi qofka gacanta uu ku haysto halis waay yaa loo dhawaanin saas duu uu wata geesaha iska firmaya loo dhawaanin laakiin garbku uu saaran yahay iska xarakeynay ana xarakeeyo waay baa kaas doo wuxuu limita in biskoolad inta soo qaatay biskool isagoo wata aan dubaha u dhignaan am ka baan urursan iska socdo maxamed xaaji waxa uu sidoo kale muujinayaa inay jiraan fursado lagu gaadi karo qof wata ilaalo isagoo dhinaca kalena sharaxaya caqabadaha jiri kara halka qof haduu la socdo waxa waay waxa halis ah inay kala fog yihiin labada qof oo ay is wardiinayaan markii uu la hadasanta oo adi madaxda tahay bacda nin sarkaal tahay ninkan staff ko marka is wardiisa ma la soo dhawaan karo oo kala durugtaan oo ninka kala u wardiyay ama laba gees kala martaan asaas kula socotaan lama dhawaan karo laakiin markay isla socdaan wali wasidii meelaha ugu badan ee al-shabaab ka faa'iideystaan waxna ku dilaan waa suuqyada masaajidada iyo meelaha xariiriga wuxuuna maxamed xaaji aaminsan inay meelahaas yaalaan fursado wax lagu gaadi karo ayna ku badbaadi karaan iyagu markay wax dilaan kadib ugu fiican wax lagu tiyaar karno meel bulsho ah oo dadka ay ku badan yihiin oo qofka ingiisa milyan qof ay qabanayaan laakiin wada nadiif ah qof socdo ikhtiyaarkiisa ma fududa horta hooyiisa aan number 1 ah oo qofka hooygu ku hooyanayo in la helo waa imaam masaajid uu ku tukanaa laba ah waa imaam wada uu maray wadooyinka uu badan saddex meelo ku kala lacaan hooygiisa in gudaha loo galo ihtimaal waayo huwa uu yaali karo qof la joogi karo oo ma lagu fududa ilaa laga ogaado gudaha qof ay ku noolyihiin laakiin hooygiisa nin oo ka soo baxo subaxdii oo kadibna mar walba uu soo baxo sida rag istikhbaaraadka ay sheegaan uu soo baxay ninka wadada soo istaaga bajaaj suuga way fududa oo soo baxo wadada in la xaq lugeeya masaafadaas xaq gaar ka raaca way fududa laakiin uu soo baxo wadada ku soo baxay ma yaqaan tan uu aadi kara taas waxay ka dhigan tahay dadka oo dhan inay baqteen si hal wada isku hayaan ilan saddex deyn hatta saddex wada isma dhigi karaan hal qof ikhtiyaari karo way badan tahay oo labada kale wal amar walba ku dhalan lahay taada kale qofka wax ikhtiyaar hukum wadan kar maanta dhan culays waay ba inay ku jiraan oo markii hadaf kala arka la soo qaato laakiin iskooladan gashana hebelan wadadan ku suga ma wax ugu badan dadka ku fashilmaan baxta oo ama qofka loo qabto waxa marka aad silaax soo qaadanayso hubka iskooladaada iyo marka ikhtiyaarka galis wax daqiiqad yar la in ahaadaan dumarku waxay qayb ka yihiin kooxaha sameeya dilalka dhagarta waxayna shaqadooda ku sheegeen inay ku kooban tahay qaadista iyo qarinta hubka iyagoo isticmaala bajaajyada naag dumar in loo helo xilliga hore raga qaadan jireen dhalinyarada bacan wax ku qaadan jireen bacdan oo fashion-ta buugta kursaysan am geesaha qaan jirnaa ka dal isku fahmay laakiin naag qadad bajaajyada soo batay fursada kala waay bajaaj loo qaadanta badan naagana qaado inta badan bajaajka oo wada waxa lagu fahmi karaa darawalka iyo naagta gabadha waxa u sadeexeeya hal wiil kale oo iyada la saaran ama geeska darawalka saaran bajaajka ka saaran waana fahmi kartaa inta badan gabdhaha qaada waa la heli karaa 30% inay dhalinyaro yihiin ay dadka magaalka u egyihiin laakiin inta badan maamooyin wiilka bajaajka saaran geeska ka saaran foodiisa iyo gabadha hubku wato ma bislaam banaagta anaag xijaaban waay
isagana nin madax weyn waa furan macnaa isma islahanba islahan macnaa way jira kartaa gabar iyadana iyo wiilkan iyo laakiin ma badna qof xijaaban waa qofkan oo waxa oo laga heebeysan karo oo hatta askar haduu qabto oo la hadli karto marka ay dhaxayaan hawlgallada dilalka ah waxay inta badan shabakada ilkaxas isticmaali jireen laba mooto bajaaj kuwaas oo mid ay saaran tahay haweeneyda hubka wada halka mootada kalena ay wado dilayaasha kadibna marka uu dilku dhaco waxaa bixi jiray mootada haweeneyda wada halka dilayaashuna ay lugayn jireen xoogaa mootada kalena ay indhayn jirtay in la xayrsanayo yan kale mootooyin la adeegsadaa ninka oo shaqada hogaaminaya qaa'idka ah mootada lagu leeyahay wato oo korkaas dheer ku istaaga isaga laba bajaaj socoto bajaajna waxa lagu wadaa maamada hubka wada ama gabar inta badan gabar waxa hubka wada bajaajta kalena waxa saaran dhalinyarada oo hawsha galay labada wiil iyo darawalka marka ma basla socdo ma eegi marka ana meesh taagan ama ninka anteenada taagan ninka istiqbaarkan oo dhex jiro hay shaqada diyaar waa ninka soo bubsiya maamada loo qaylinaysa kan loo waqti dawgalaa labada bajaaj waa la isag dhigayaa birta la kala xirna la kala baxa marka wada deganayaan marka soo cuntaan loo qaso mara xaq nooga imaada noo position kala qaadana marka ninka oo hogaanka wada oo ciidanka wata qaydka amar walba waa inuu arkaa ciidanka soo cunayaan markay baxaan oo inuu joogaa meeshii dadka soo daba kacay u sheegi kara bajaajyada ay isticmaalaan maxamed xaaji waxa uu sheegay inay qayb ka yihiin hawlgalkooda isla markaana ay wax ka ogyihiin sida ay wax u dhahayaan horta bajaaj oo aan shaqo wax ka ogeyn ma jirto lama saar tasartaadan kala dhacdo ilan bajaajka noocu yeelan ma yaqaan nin BS ma bataqaanid bajaajka hubka saaran always ninka wada waa ninka wax keenay wali dadka hubkooda waa ka dirin ka sadaranta laakiin bajaajlaha dadkan waa la soo raaca leh maya ما بل اسكو امن بانغ بجاج لهم كشكناد waxa dhan wax limit inay ahaadaan yani qofkan hadii wax ay ku dhacaan in meel loo raacan kara maxamed xaaji waxa uu sheegay in shuruudaha laga rabo qofka ka mid noqonaya kooxdooda dilalka looga baahan yahay inuu yahay qof aan la aqoonsan karin oo aan soo marin qaybaha kale ee al-shabaab sida xisbada iyo wixii la mid ah amniga waa qof dadka aan aqoonin muhiimadana amniga waa qof aan dadka aqoonin taas maxay ka dhigan tahay horta adiga in maalin xataa qof usan kugu dhigi karin shaawata usan ku dhigi karin taas inay jirto horta hadii san jirin dhibay leedahay qof xisba aha mujidka am dagaal soo gali jiray ma fogo inta soo geeyo hadii dil la dhaxo qofka waa in hadii madaxtooyadu dhaxmar aan lagu dhigi karin horta waa inuu noocaas u yahay horta sidoo kale waxaa la soo baraa inay bulshada ku milmaan oo ay ku dhaqan noqdaan sida inay dhalinyarada garoomada kula ciyaaraan banooniga iyo wixii la mid ah qofka inuu bulshadaas uu ku nool yahay sida uu egtaa uu ekaado dhalinyarada baloon hadii inaan baloon dhili karaa tahay hadii dhalinyarada iskool ay tahay inaan private ka dhigin kartid hadii saas bulshada inaan aadan ka duwaneen meesha waa la isku barayaa al-shabaab waxay dhalinyarada ay maran habaabiyaan u fasaxaan wax kastoo aysan ogolayn diinteenna ay ugu horreyso daadinta dhiigga muslimka waxaanay hadda soo kordhiyeen inay dhalinyaradooda u fadwoodaan maandooriyo nooc kasta inay isticmaali karaan si ay u dhagraan dadka iyadoo oo laga ilaalin lahaa inaad balwad baratid oo aad sharmuuta naqatid oo aad xumaan samaysid iyadoo laga ilaalin lahaa aadan waxa mubax ku ah si adigu aad u dhagrisid inaad hadii xashish aad ka daba cabtid marka nin amni oo sona ka muuqato maya sidoo kale waxa uu maxamed xaaji sheegay inay mamnuuc ka tahay inay ka muuqato sunnada nabiga iyadoo laga rabo inay u labisaan una xirtaan sida ciyaal ziyaha سؤالان مركا أديك هذا أنت ذاك بحث وقاف شلنتد أما إن الناس مركا تورو أديد ماذا حاجة صدقك وجرينا لو جرا فوضى كسوعنا مش ملقايا له حزبك وخواني سوانا فشلنتي حزبك قال المحادي حمران كي ماذا حبسه له قلنا أمريكا وكي ماذا قار بروفو قار مجدي وكي ماذا أمني هذا توقف فشلنتي عنه اسكسو جر جاي واسكسو جاي نظامك حق راعي maxamed waxa uu qabaa in ka mid noqoshada noloshan shabakada wax dhagarta ay tahay mid mugdi ah oo xanuun badan horta amniga nolol cajiib badan oo mugdi ah nolol aad mugdi ah xanuunku qofka amniga uu dareemi karo markii saaxiibkiisa la qabto saaxiibkiin uu ahaa qof isaga yaqaana waa dhib badan tahay that's why
qofka haddii aad madiina degan tahay oo mar walba inaad isku aragtaan banaadir waa haddii la soo qabto mar walba wuxuu banaadir ku kulmi jiray ninka ciidanku waa nageeyay banaadir oo dhan la baarayaa ka tadana raad in lagu helin macna muhiimada saas waa raad in lagu helin bal hadduu ku soo qabto xataa jidka saxdii loo raad ku helin ana banaadir ku kulmi jiray ha magaca waxa la xudayfa leebna waxa xaja leedahay ها تقول مجرد بنادر عمري متين طلع عندك أنا نكرت المرقات يلا كاس قدومي واحد كذا قاعد هيرس المركة وحرجت المركة عمري ما قال المركة واكنا والدين تدي أسكالات وإحنا زويدي تتكاس الدين تهبل ما بقى قانية هرات نوصل لهن يعني حتى هذا اللي حكمه هذا ما لا لقاه اللي حكم maxamed xaaji ilka xase waxa uu barnaamijka gungaar u sheegay inuu dilay 2 qof oo saameyn ku lahaa noloshiisa kuwaas oo midna uu ahaa saaxiibkiisa kaliya abiis oo lagu magacaabi jiray baadil caana ka ah xamar jajab iyo nin ay qaraabo yihiin oo gacan ka geystay sii deyntiisa markii kol hore la soo xiray taasoo ka dhigan inuu dilay ninkii soo daayay waxa ugu yaabadna horta 2 nin midna qaraabaan si gudoonahay oo daladaas anaga dhaxayso si hadii loo fiirin aabir saaxiibay aday u adkaato waana ka farsan waay nin la dhigi jiray bedel ama baadil saa u taqaana baxbar jabaysan jiray xiliga mooriyaanta oo sarkaal ah soonka 2016 ka la dilay abriil lagu soo aadamay xiliga soonka ma jeclan in dilix adeeraan dhigi jiraan waliye way dhibi waa ka farsan waay marka maanta aday saan waxa lagu dilay boolaalay anwa aabay saaxiibay inta ninka dadka iideeyo kamid ah ay boolaalay wado waxa jirta oo yar mudada lagu soo leexanayo oo dhankan oo wadada waxay martaa wasaaradda arrimaha gudaha gadaasheeda mootooyinka mari jireen mootooyinka meesha mari jireen waxa jirta oo hal sar ah oo ciidan fadhiin jiray oo nin lagu wardiin jiray guriga ku dhagan oo deganaa bisay ninkan guriga lagu dilaa marka ay maxamed xaaji ilka xase iyo kooxdiisu si dhagar ah wax ku dilaan kadib maxay sameeyaan isaga la fahantiisa ayaa sharaxaya waxa xiga dilka kadib horta dadka ma orda markii wax dilaan horta dhil ma lagu orda xaaladda dadka haday dad badan yihiin labada orda waa la orday haday dadka taagan yihiin oo taagnaanay soconi marka luuqa ku wada gashay afkane bas ala sarax waareenay bas si laga soo doo bixin laakiin dadka ku arka ordid dadka isku dirtay qabtaa باش اسين وسعني لو ويلي انت ما اردن مقل جرتن ما اردان ودي سك اردان ادنك ما اردن لكن markay bugbug ay maqasho dadka dhan labada ordo miska cilnaysa dadka ordayaadi haday joogsadaan wala joogsanay shardiga luuqa koowad duusas oo gashid luuqa koowad in aday aad baxsatid xawaaraysid kadibna luuqa kala bajaajta taala alaabta iska dhibay baad luuqa qabtaa wax ma dilin bay maxsameyn nin ambaarito dadka lahaynaya tahay dumarkiyo caruurtiyo duqowiyo aqooyahan anu jirnaxayno tabargoynaya tahay maxamed xaaji ilka xase iyo shabakadiisa oo ka koobnayd 9 qofood kuwaas oo 5 ka mid ah yihiin maqarayaal waxaa la horgeeyay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya darajadeeda koowaad baaris dheer oo ay sameeyeen hay'adaha baarista ciidanka sida NISA iyo CID ayaa kadib lagu wareejiyay sarayaasha xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida Oktoobar dabayaaqadeedii ayaa loo dhaadhiciyay xabsiga dhexe ee sanayaasha waxaana uu xafiiska xeeraarinta xilligaasi isku hawlay baarista eedeysanayaasha maxkamadda hortaagan iyo kuwa la shaqaynaya ay soo gudbiyeen xafiiska xeer ilaalinta
bartamihii Noofembar ayay codsadeen xeer ilaalinta in la muddeeyo dhagaysiga kiiska waxaana ay maxkamadeynta eedeysanayaasha isugu jira maqanayaasha iyo goobjoogayaasha bilaabatay horaantii Diseembar sanadkii tagay. ugu horreyntii eedeysanayaasha loo haysto ayay u jeediyeen garsoorayaasha waxaanu wax ka weydiiyey gudoomiyaha maxkamadda jiritaanka eedda loo haysto. maxamed xaaji axmed maxamed isaaq maxamed waxaa lagu jeediyey eedda aad dhegaysanaysay waxaa lagu haystaa inaad ka tirsan tahay kooxda al-shabaab inaad koox oo qayb fulisa horjooga aad u tahay dilalka aad dhegaysanaysay oo ilaa 3 gaaraya iyo dilal kale inaad fulisaa lagugu eedeynaya waxaa kuu bannaan 3 jawaab midood eeddaas ma gelin eeddaas waa galay iyo doodaan ka qabaa si wax u jira inaad sharaxdo. fadhiga hore inta badan lagu dhageystay markhaatiyaal iyo baarayaashii kiiskan ayaa mar kale dib la isugu soo noqday 16 Diseembar sanadkii tagay. xafiiska oo fursadda dib u dhigista ka faa'iideysanaya ayaa soo diyaariyey shaxda horjooga Ilka Case iyo kooxdii uu u talin jiray kuwaasoo maray xukun cadaaladeed iyo kuwa sugaya in cadaaladda la marsiiyo. gaashaanle Muumin Xuseen Cabdullaahi ayaa noo sharaxaya eedda loo haysto raggan. labadii eedeysanee dilay marxuum Xeefow iyo tilmaamihii ay bixiyeen saddexdii shakhsiya lagu soo qabtay Naasa Hablood iyadoo laga duulayo la raadinayo shakhsigaas aadka muhiimka u ah oo ah Ilka Case. laamaha baaristu waxaa su'aalo laga weydiiyey qofka isaga ka sarreysay ee goobta keentay. canshuur wuxuu bixiyey tilmaan yani ka dhow labadii tilmaamood ay bixiyeen labada mataqaanaa group ee ka horeysay isaga la soo qabtay. canshuur wuxuu tilmaamay inuu amiir u ahay hagaayay nin la yiraahdo Ilka Case. jenaraal Cabdullaahi Buule Kame xaraaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa codsaday in dhammaan eedeysanayaasha la mariyo ciqaabta ay mudan yihiin. dhammaan eedeysanayaasha oo u kala saaran 3 nooc qaar jooga oo ah dilayaal oo ku soo eedeynay 434 iyo 221 qaar maqan oo ayagoo maqana aan dil ku eedeynay kuwaan la wadaagay iyo eedeysanaha sagaalaad oo isagu ka mid ahaansho iyo sahan kaliya u ahaa laakiin aan fal gacantiisa ku fulin. waxay ka kooban yihiin 9kooda marka laga reebo eedeysanaha sagaalaad 8 kale dadkii magaaladan dadka ku xasuuqayay ha ugu darnaado eedeysanaha koowaad. eedeysanaha koowaad waxa uu ahaa wax lagu qiyaaso miqyaas lagu qiyaaso halbeeg ma laha dambiyada jariimooyinka ummadda uu ka galay ma jiro waa dilaa arxan dalan. waxaa nasiib darro ah hadda ka hor inta la soo qabtay aabbihii oo sarkaal booliiska uu damiintay ma daayeen aabbihiis xataa kabar buu u ahaa hadhowdii islaam markii lagu qabto ku damiinanaya xataa aabbihii ma daayeen waayo waxa uu dilay kii soo koriyey gacantii quudinaysay buu dilay. ismaaciil jenaraal ismaaciil wuxuu ahaa kii soo koriyey marka oo gurigiisa uu ku noolaa gacantiisu ku dila sababta uu dilayna waa hal arrin ramadaan baa lagu jiray tiruu tirsanayay dadka uu dilaayo uu ku xisaabtamayay ma ahan insaan caadiga qof lagu tilmaami karo dad buu tirsanayay uu tirada uu dadka dilaayo tiradii baa ka dhimanaatay waxay gaarsiisay inuu dilo adeerkii isaga soo koriyey aabbihiina ma daayeen laakiin wuxuu u daynayay inuu u ahaado kabar uu ku gabado markii la xiro oo soo daaya. waxaa intaas ka daran meel uu dad ku dhaafayo ma lahayn diin uu caabudayo ma jirin masjidka dhexdiisuu ku dilaayay kii masaajid ka soo baxo bannaan ku tugaayo. waxaan codsanaynaa in ciqaabta u qolanta lagu qolo lagu xukumo oo dil toogasha. qareennada u doodaya eedeysanayaasha ayaa iyaguna dhinacooda maxkamadda ka codsaday in loo naxariisto ciqaabtooda sharci aan la dhaafsiinin inta ay ogol yihiin. maxkamadda sharafta leh waxaa ka codsanaynaa wax cadeymaha loo haayo oo ah inay ayaga qiraal yihiin oo shabaab yihiin keliya inay loo raaco kaas oo qodobkaas oo looga darayo qodobka 4aad oo tilmaamaya waxyaabaha dembiga fududaay maxkamadda sharafta leh intaas ka codsanayna. 31 Diseembar ee sanadkii tagayay maxkamaddu ka soo saartay go'aan rasmi ah sida warbaahinta u akhriyay gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. bismillaah maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa go'aanka dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysanayaal 1
maxamed xaaji axmed 27 jir ah ina faadumo cumar xasan ku dhashay shabeellada hoose 2 saalim saciid maxamed 27 jir ah ina leylo xasan cumar ku dhashay shabeellada hoose 3 axmed maxamed haashim 26 jir ah ina cadeey axmed islow ku dhashay shabeellada hoose 4 sharmaake cumar axmed xuseen 25 jir ah ina sacdiyo maxamed cali ku dhashay hiiraan oo maqane ah 5 axmed faarax iidle 23 jir ah ina faadumo xasan ku dhashay xamar oo maqane ah 6 cabdiraxmaan mustafa cabdulaahi 22 jir ah ina faadumo maxamed shaakuud ku dhashay xamar oo maqane ah 7 ramadaan cabdiraxiin mursal ina muslimo madgafiim ku dhashay baar dheere oo maqane ah 8 cabdinaasir axmed cabduqaadir 27 jir ah ina faadumo maxamed ibraahim ku dhashay xamar oo maqane ah 9 faadumo xuseen cali cadaawe 24 jir ah ina dahabo cumar wehliye ku dhalatay hiiraan kuwaas oo xafiiska xeerdhaalinta ciidamada qalabka sida si wada jir ah ugu soo eedeeyay in ay ka wada tirsan yihiin kooxda al-shabaab gaar ahaan qayb fulisa dilalka qorshaysan iyo sahminta oo ka howlgasha magaalada muqdisho markay aragtay maxkamaddu dambi muujinta ah dukumiintiyada kala ah cadeymihii iyo qiraaladii laga qoray eedeysanayaasha koowaad labaad saddexaad iyo afaraad oo goobjooga ka ahaa maxkamadda iyo cadeymaha iyo gungaarka laga soo gudbiyey 5 eedeysane ee maqanayaasha ah 2 qoraallo hore looga qoray xukunsanayaal lagu fuliyay qisaas iyo kuwa xukuman 3 sawirada iyo warqadaha cadeynta dhimashada marxuumiinta sare ku xusan 4 dukumiintiga lahaanshaha mootooyinka ay ugu adeegayeen kooxda al-shabaab eedeysanayaasha labaad oo goobjoog ah iyo 8aad oo maqane ah 5 galdacawadeedka hore looga diyaariyey eedeysanaha koowaad maxamed xaaji axmed 6 moobeelada ay isticmaalayeen eedeysanayaasha labaad iyo 9aad oo ay ku jiraan sawirro ay u dirayeen kooxda al-shabaab markay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhaxaysay dhinacyada kale ah xafiiska xeerdhaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareennada difaacaya eedeysanayaasha sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in 9 eedeysane ay wada yihiin dambiilayaal gale dambiyada lagu soo kala oogay waxayna maxkamaddu ku kala xukuntay 1 dambiile shabaab maxamed xaaji axmed oo afgarashadiisu tahay ilka case 2 dambiile shabaab saalim saciid maxamed oo afgarashadiisu tahay salmaan 3 dambiile shabaab axmed maxamed haashim oo afgarashadiisu tahay carab oo dhammaantood goobjoog ka ahaa dhegaysiga garmaqalka waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah 4 dambiile shabaab sharmaake cumar axmed xuseen oo afgarashadiisu tahay ugaaska iyo ganay 5 dambiile shabaab axmed faarax iidle oo afgarashadiisu ay tahay shuuriye iyo madoobe 6 dambiile shabaab cabdiraxmaan mustafa cabdulaahi oo afgarashadiisu ay tahay faarax mooryaanka 7 dambiile shabaab ramadaan cabdiraxiin mursal oo afgarashadiisu tahay saalax oo maqanayaal ah waxay maxkamaddu ku xukuntay ayagoo maqanayaal ah dil toogasho ah 8 dambiile shabaab cabdinaasir axmed cabduqaadir oo afgarashadiisu tahay carabey oo maqana ah waxay maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'in 9 dambiile shabaab faadumo xuseen cali cadaawe oo magacadeedu afgarashadu yihiin faadumo korneel iyo cosabo oo goobjoog ah waxay maxkamaddu ku xukuntay 15 sano oo xabsi ciidan ah ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan raacfaan wabilaahi towfiiq guud ahaan barnaamijkeenni gungaar oo ay gacan iga siiyeen cabdulqaadir ciise fu'aad muxyidiin iyo maxamed cabdi caraaye waa naga intaa tan iyo intaan barnaamij midkan lamida ku kulmayno waa bahdii gungaar oo idinleh nabaaddiin iyo nooli kulanta